السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii farxad bay noo tahay in caawa xaggana nagala soo qayb gashaan annagoo idinku mahad celinayna oo idinkula dabaaldegayna guushii aad gaadheen nasiibkii loo wada sinaa ee dhammaan macaamiisheeda adeegayga haysataa ay u sinaayeen runtii shuruudihii ku xidhnaa ciddii buuxisayba tartankii sida daaha furan loo qabtay markhaatigaba ka ahaa maayadxigeenku dadkii soo colay mishiinkii xuliyey taabtayna ka mid ahaa uu caddeeyey waxaan leeyahay intii guulaysatay hambalyo inta kale macaamiisheedana waxaan leeyahay tusaale u yihiin inaad ku guulaysan kartaan sanadaha soo socda mar walba waan idinku faanaa tiirarka ugu waaweyn ee shirkadu ku taagan tahay waa macaamiisha marka laga tago shaqaalaha iyo mulkiilaha runtii tacabka weyn geliyey ee hantidan badan ee Somaliland quruxda iyo la tartanka adduunyadaba ka qayb geliyey waxaan u taageerayaa runtii hadalkii oo dhanba shirkadda ciddii ugu horeysay baa u sheegtay maamulka iyo madaxdii dowladda hadashay waxaan keliya taabanayaa waxa weeye Somaliland waxay ku dhisan tahay suuq xor ah oo tartan furan ah oo adeegyada ugu horeeyaan ku leeyahay kastamarada iyo adeeg bixiyaashuba doorashadoodu ay ku xidhan tahay caawa xagga waxaan leeyahay annagu waxaanu haynaa adeeg wixii naga soo gala aanu dadka ku celin waxaan jecelahay inaan sababeeyo runtii dadku way isweydiinayaan oo gobolladoo dhan baa laga helay hargeysa aan isugu keennay maadaamay hargeysa magaalo madaxdii tahay xagga qiimaha dhulku leeyahay dadee dhulka ugu sarreeya waxaan isir waxa ugu qaalisana la bixiyo dadkiina ku celiya meel keliya ku wada celiya waxaan jecelahay sanadaha dambe wax ka duwan inaad nagala kulmi doontaan waxaan dileeyay dadaalka xaggaa ka sii wada adeegyadeeda mid kastoo suuragala qaata annaguna waan idin garab taaganahay waxaan runtii aanan ilaabi karin shaqaalihii maalintii koowaad ee xagga dhulka la soo geliyey bilaabay waxaanaanu dadka dheer nahay runtii facaya la dhaafiyey shirkadaha la dhaafiyey tacabka badan geliyey ku nool iyo kii dhintayba allaha u naxariistay abaal weyn baan uga haynaa shaqaalaha hadda xafiisyada ka howlgala gobollada iyo dhammaan inta ay xafiisyada aan ku leenahayba waxaan leeyahay iyagana guushii aad shirkadda gaadhsiiseen maanta midhaheedu waa kaa macaamiisheenu goosanaya runtiina waad mahadsantihiin 100 jeer mar walba waxaan leeyahay shaqaalaha waa shaqaalaha Somaliland ugu horeeya meel kasta istaagaana iyaga ugu wacan ugu maaragtay aqoon dheer guushana waan idin haynaa cidda gaarsiisay ee maanta aan ku faanayna waa idinka waxaan aad mar labaad ugu mahad celinayaa marti sharaftana soo sharaftay ee nagala soo qayb gashay saaxiibkii wasiir Mustafa ku soo dhaweynaya odaga caawa ugu weyn baan ilaahay soo dhow Isgaarsiinteena soo